horta marka u horay waxaan u hambalyeynaa dadweynaha Soomaaliland iyo xukuumadooda waayo waxay ciyaareen door aad iyo aad magaca Soomaalida maarta u wanaajiyay maadaama ay maarta nabad u keeneen dhallaankoodii haweenkoodii odayaashoodii iyo dadweynaha guud maxaa leh nabad ayaa macaan leh marka waan hambalyeynaa horta dadka ku doodahay iyo Soomaaliland ma go'i kartaa iyo ma go'i karto waxaan leeyahay aniga waxaan qabaa aragtida Soomaaliland in la aqoonsado sababahaasna aan u rabaan ku sheegaya horta Soomaalidu markay gobonimadu qaadanaysay nin kastaba cadifad Soomaalinimo ayaa haysay calanka Soomaaliya oo buluuga ee dhaxdana xidig kaga yaalo wuxuu astaan u ahaa shanta goboleed oo Soomaaliya oo Soomaalidu ay degan tahay waxa kamid ah NFD oo aniga aan ku noolahay waxa kamid ah Ethiopia oo Soomaalida ku nool gobolka Ogaadeniya ama Soomaali galbeed loo yaqaan waxa kamid ah Djibouti waxa kamid ah Somaliland iyo waxa kamid ah Soomaali koonfur Soomaaliya aniga bil midna oo kale wadanka Kenya ku nool oo maanta Soomaaliya ma doonayo inaan Soomaaliya kamid noqdo Djibouti way tagtay waa wadan xor ah Ethiopia hadda waa waanba u socotay Soomaalidu waxay rabaan inay qayb ka qaataan Somaliland markii Soomaaliya ay burburtay iyadana qaybteeda ciyaartay way isqaantay waxa dib ku jiro waa koonfur Soomaaliya su'aasha waxa way ya Soomaalinimada jecel nin Soomaalida laayna hor Soomaalinimo ma jecelo been yu sheeg adiga kuy kula joogay Muqdisho mise Kismaayo ayaad laynaysaa Soomaalidu waxay noqotay dad ceel ku dhacay ninkii ku dhacana waxay rabaan inay lug qabtaan inuu ka soo bixin marka waqtigii Somaliland la aqoonsanay waa waqtigan way joogtaa way kartay ninka ka hor imaadana Soomaalinimada ayuu xasid ku yahay maxaa yeelay wadan aniga balihi yaani dad baadaya oo waxaan doonaynaa midnimadii Soomaalinimadan doonaynaa ma kala go'i karno su'aasha waxa way ma jeceshahay Soomaalinimo gurigaada nabad u yaal dadkaada daryeel markaas Soomaalinimada jeceshahay markaas aan isku imaanayna waan ogsoonahay adduunka waayahan Yurub way midowday East Africa maanta aniga wadanka ku nool waa Kenya Uganda Tanzania Burundi Rwanda waa midowayna dadka bardambu midoobi doona kolbo Afrika oo dhan baa midoobi doonta hor doorkaada ciyaar dadkaada nabad u yeel dadkan kale Allah aqoonsado oo caalamka waxay keenay karaan oo naruuro iyo ma arta deeq ha ka helaan maxad uga xasdaysa marka waan qaba aragtida Somaliland inay nabad noqoto inay la aqoonsado aniga shakhsiyan waan aqoonsanahay aniga waxaan u soo jeedin lahaa horta marka hore we are very proud of you aad iyo aad baan ma aragtay ugu farxsanahay waan wanigu faanaa waxaan leenahay nabadii sida u wada midnimadii saa u wada hana qalbi jibna hana rajabeelina rajalaan yay rafiiqna loo noqon sidii Muqdisho mise koonfurta Soomaalida marka waxaan leenahay ma aragtay dantu waasayto waad gaari doontiin meesha joogtiin already waxaad tusteen adduunweynaha inaad isku kalsoontiin charity begins at home marka inta kale insha Allah xaq iyo baadilka isku mid meel ma maraan waa socon doonta haddana waxaan ogsoonahay بالمثل هذا ديارات عصب باكب بلاوناسا نيروبي iyo Hargeysa isku xiraysa oo waliba wajeer si maraysa waan imaanayna qayb baan ka qaadanayna Somaliland isbeede